سان كورما سان قف الله قفك إيريدان جوجا كدعي سان حبض الدلوري كورما سان ممدن قطبة marka waxaan rabaa in ma qoro qam ku siitay kala hadana qoraysan inta uu qabsaday tan kala hadana qam ku siisay bismillaah ujeedo eedku aayadsan si waafaqsan qodobka 71 xeerka habka ciqaab Soomaaliyeed alif la xooga 48278 maad nuur shube 23 jira in malaa'ika nuunu maxamed ku dhashay xamar degan xamar kana tirsan ururka 7aad guutada 18aad ciidanka gorgor xooga dalka Soomaaliyeed waxa lagu eedeynayaa in aad si bareer ah xabada aad ugu riday dhalinyaro daayar ah oo ku dheelaysa banooni xabadihii aad ku ridayna ay ku dhaceen marxuum la oran jiray Allah u naxariistee Faysal Cismaan Cabdi Jinulka falkaas oo ka dhacay degmada Garsbaaley taariikhdu markay ahayd 24 bishii koowaad 2026 abaaro 12 saac iyo bar galabnimo dambigaas oo ku xusan aayada 178 ee suuratul baqara iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ma eedaas labada ah waxa kaaga furan saddex jawaabood waan galay ma gil idoodan ka qabaa dood sharciga ka qabaa doodada cadeyso dood sharciga ka qabaa waxa uu gudoomiye ana oo xafadeeda ka soo baxay mar dhaw waxa ka imaaday furunta ka imaaday fasaxa ku soo baxay fasax maadaama ku soo baxay baawarka dhaxna waa halaabay maadaama waa halaabay baawar raac meesha xiridan ku aaday ma haysanin baawarkii meesha awood degnay xafadiisu aaday xafadiis markuu aaday maalin labaad tali unuga isoo wuxuu yiri qoriga xaray abaar 10 saac meelaas markay tahay wiil mutala wacay waxa dhahay saaxiib maani ma xiridan ay geysay raba wiilkii inta isoo socday garoonka iyo xaafada meesha ku taalo waa hal meel isku soo horjeedaan macnaha maadaama isku soo horjeedaan waxay hor maadeen marka saas u socdo wiil oo macnaha isdagaalayo macnaha oo bindiyal wax bataan oo ciyaal weere ah wiil ay tumayaan ay hor maadeen markii hor maadeen waa la hadalkii markay maqli waayeen laba xabood kor ugu riday laba kor ugu riday way kala ordeen markay kala ordeen waa si dhaafay socodkii hore soo socday anoo soo socdo qoriga xarigiisa iga furmay qoriga marka xabadaas sida iga dhulka iga dhacday dhulka ku dhacday waxbarka baad waxa maqla qof dhiig buuxay meesha soo aaday meesha marka soo aaday marxuumka kor imaaday marxuumka kor imaaday meedu ahay marka gargaarna u sameeyay rabay wax yaqaan eelkiis wax meesha ka wax yaqaan waa ka waayay baawur meesha kama dhaweyn aan ku qaado markaas waa baxay meel baawur ka dhaw yahay wada labo loota aaday markaan aaday ilaa amarkiis marka ciyaalkii aan xabadeynayo oo isdagaal ilmaha bursanayeen oo meesha foodo iyo xaafada qalaasi ku wadeen ay iska hor imaan ay macna isu daba kaceen markay soo daba kaceen waa ka socod boobsiyo iga har waayeen markaas aan marka maadaama baawur aad doonay ibnimkan macna aan qabateen igu noqdeen macna aan inay ani hubka inay macna isku qabtaan macna aan jirdilaan isku dayeen markaas lama amni dhinac saldhig u dhow yahay aaday taas ay mumkin wax u jiraan wiilkaas marxuumkan si taarget ani waxna ma dhixinin man aqoonin ilaahay kuma darnaaday ma jirdilin si bareer cad ana uma aadin arintan kama u dhacday min gudoomiye maxkamadda waxa uu sharaxdaa ciyaal banooni dheelaayo inaad xabad ku ridid isqabasi maxaa keenay inaad dhalinyarada waxa keenay meeshii wadadii aan macnaha aan ku socday oo wadadii xaafadda ahayd ay ku soo socdeen dhagax weyn tuwana tuuriyeenay dhagaxina watay waan soo tuuriyeenay meeqa xabad ridaaday ani laba xabadood ay riday xabad dhulka iga dhacday saddex saasay ku tahay labada xabad kor waay marka labada xabadood iyo xabad dhulka iga dhacaysa isku dhaw wax yar farqiya u dhaxeeyo inta wiilasha aan ka kalburiye iyo socodka aan socdo oo xabadii dhulka horteeda ku dhacay marxuumka dhintay dhalinyarada banooniga dheelaysa muu kamid ahaa ma kamid bixin meel uu iska fadhiyay daawado ahay meel cabaar ii jirto fadhiyo meel geed uu iska fadhiyo waan iska cadaysanay markaasna intaas waxa ii sheegay xataa qofka marka xabad ku dhacaysa xataa si target macnaha in xabad ku dhacday uma jeedin xabad markay ku dhacday dadkii gaaray joogay oo horteeda u orday oo wiila dhig buuxay aan ku ogaaday in wiilka xabad ku dhacday marxuumka xabad xagee uga dhacday sujuuday ugu dhacday mana ka dhaxbay laakiin ku dhax qowday xabadii dhulka tiirada ay taabatay ee ku dhax qowday marxuumka meesha ku dhintay ee xabad ugu tagtay iyo ciyaalka meesha banooni dheelaayo intee isku jiraan garoon weyn uu ahay garoonka markaana loo hareereysan yahay garoonka marka geeskiisa hagaraysa uu cunugu fadhiyay abaaron ii jiray ma dhaweyn si taarkad aan u aadan ma aha xabado kale ma goobta ka dhacay kuwii aan kor u riday ma aha wax ku dhacay cunuga xabadii mid xash xabo oo qariga xarig iga furmay oo dhulka iga dhacday oo ku dhacay meesha bacaad ma ahayn bacaad hoos dhagax ka ahay korna bacaad ka ahayd bacaad oo salax oo bacaad oo zaa'idna ma aha qabasiya xabad dhulka ku dhacday iyo sujuudda ku dhacday okay daas qabadsiyo macnaha xabada markay dhulka ku dhacday cunuga macna ima dhaweenin
biftiisa maqan macnaha xasla marka xabad markaas qof ay ku dhacday in misdin waxa is dhahay in macnaha dhulka xabada gashay aamini marka dambe waxa maqla cunuga dhig buuxay meesha ama xasla marka dhagaxii la tuuray ma cunug ku dhaceen waxa uu soo fiiriyay macnaha inaan fiiriyo cunuga in dhagax ku dhacay in macnaha wixii dhibaato xabada meesha dhulka dhacay inay ku dhacdaan soo fiiriyay waxa gurmada ma fiidsan marxuumka intuu san dhiman waxa gurmad in uu fidiyo waa rabay meesha waa kor tagay baawur meesha ma dhaweyn wax eelkiisa ama ila qaada xataa meesha ma joogin markaas ila amarkiisa baawur meel oo ka dhow yahay aaday waa socdaalkan socday ragaan ciyaalkeeda axbadeyna oo ayagoo tiro badan dhagaxay iyo tuuriyeenayeen ay soo daba kaceen adiga waxaa sheegtay inaad fasax aheedaa sheegtay soo ma sax adigoo fasaxa maxaa qori kuu dhiibaaday wuxuu gudoomiye baawurka na soo qaaday toos xirada inuu noo geeyo rabay baawurka wuxuu noo halaabay dhaxda lambar 4 noo halaabay marka saas marka taana kuwii isla soconay oo isla iimaanay fudud iskala soo baxnay xafadooda kala aadeen baawur meesha loo qaaday lama dhaweenin oo baawura soo socday waxa la waarku halaabay aniga marka wiil mootoolaha oo xaafadeen degan ahroos ku siiraan aniga inta slimaanabo wax xirada aad ma laha marxuumka goobta ma ku dhintay mise isbitaalku geerida ogaantaa ma goobta ku dhintay Everest ku soo noqon doonaa mudan gudoomiye garsoorayaal maxkamad sharafta loo maasan tahay oo fursad noo siisay eedeysane alif le xooga mahad nuur shube dacwadiisa inay maxkamaddu maanta ay dhageysato waa mahad celinaya maxkamadda sharafta badan marka labaad mudan gudoomiye garsoorayaal su'aashii laga weydiiyey eedda xafiiska xeeraaliyaha guud ka soo baxday ku soo eedeeyey si waafaqsan 103 markii garsoorku weydiiyey 104 si waafaqsan qodob 104 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed wuxuu ku jawaabay inuu dood ka qabo wax kamid ah sheekada waa uu ka run sheegay qayb kamidna waa uu ka been sheegay haddaan se wax u dhaceen aan maxkamadda uga paaloodo taariikhdu markay ahayd 24 bishii koowaad 2026 eedeysanaha oo maxkamadda horteedaba ka sheeganayo sidoo hadda sheeganayo inuu ku jiro fasax ururka uu ka tirsanaa urur 7 guutada 18aad ee ciidanka gorgor fadhigooduna ahaa Masagawaay wuxuu sheegayaa in fasaxii asaga iyo qorigiisa la soo fasaxay oo wax oo dhif iyo naadir markii ugu horeysaan arkana mudan gudoomiye garsoorayaal wuxuu kaloo sheegay inuu joogay guriga hooyadiisa oo ku yaalo Garsbaale waa uu soo baxay abaaro galabnimo 12 saac ilaa 12 saac bar ninkan markii uu soo baxay waa soo baldhigi doonaa garoonku waa garoon aad u weyn meel ciriiri ah sida uu sheeganayo hadda ama meel ay ilmo uga hor imaadayaan ama dhagax ka soo gaarayo ma lahan garoonku istaagay ciyaartu fiirsaday soo ciyaartu u fiirsanayay laba cunuga isdagaashay labadii cunug markay isdagaashay waliba waa u dhawaayeen waa tusi doona maxkamadda waa soo bandhignaa intii u jireen ilmaha isdagaalaya labada gool sida banooniga lagu yaqaan labada gool kamida dhabarkiisu taagan yahay ee isla goolka hortiisa isku dagaalaya marka ayaga oo gudaha ah ninkan eedeysanaha laba xabbo ay kor ugu ridaan ilmihii labadii xabadood ay ka sasayaan waa ordaya ilmihii isku dhaganaa oo isdagaalaya mid kamida haray wuxuu adiga see anaga ugu dhiiratina xabad nagu rido adma xabad nagu ridi karo maxaa ka galay yaa kurina kala celi cunuga soo istaagay adima aniga saasi dhahayo ha hoos ugu dhigay hal xabbo uu si bareer ugu riday cunugi kuma dhicin allah u naxariista marxuumkii ku dhacday oo iska cadaysanay oo ciyaartii fiirsanay wuxuu gudoomiye saasi wax u dhacay halaha uu sheegay uu leeyahay dhulkii xabad iga dhacdayo baad xabad inta ku sarmay lacag baaloota dhagax ku dhacday baaloota darbi ku dhacday way sarmi kartaa ama bir ku dhacday marka mudna gudoomiye garoonkuna garoon aad u weyn waa meel uu maraa waafiyay walaah wuu ka baan sheegay ciyaartu fiirsanay ilmahaas cunugaas yar siduu intu u istaago xiniyo kula soo hor istaagi karaa adoo qori wato taas uu ku fikray waa gorgor waa special waa ciidanka ugu tababarka badan uu ka tirsan yahay ciidanka ugu sharafta badnaa uu ka tirsan yahay markaas uu rabaa inuu la ficilsamo uu ka falceliyo cunug yariisoo banooni dheelaayo oo dhahay see xabad kor noogu ridi kartaa qorigu uu watana ma xataa qori aa ka ciyaar ma fal waay mudana gudoomiye qaabkaas u dhaqmay eedeysanaha waxaan maxkamadda hor keeni doonaa horta qiraalkiisa iyo oo garsoorka loo horgeeyay si waafaqsan qodobka 39aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed waafaqsan qodobka 68aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed ee garsoore ka qoray waxa uu ku dhagan yahay
oo uu sheekada ka bedelayaa qaabka wax u dhaceen oo ah inay xabad dhulka uga dhactay fakatay wax ka jir male taas waxaan maxkamadda sharafta ka codsanaa horta qiraalkaas maxkamaddu waa akhriso laba margyada aayadda ku xuso in hal loo soo geliyo la waraysto waxaa dheereed mudana guddoomiye ee margyadaas sheegi doonaan maxkamaddana hor keeni doonaa ka hor caddayn doonaa in eedeysanuhu markuu ogaaday xabadihiisi inay ku dhintay muwaadin soomaaliyeed inuu ku dhintay cagtuu wax ka dayey uu jabsaday si geesinimo leh waxay ugu bareereen ama dhammaantiin ha in laayo ama niyo ninkan qabta go'aanay qaateen ilmihii xindiyahooda ku qabtay oo gacanta ku watay shay ma jira xataa waa isku duubeen saasaa lagu qabtay eedeysanaa inuu fakaduu rabe wax ka jira male mootaa doonaya marka mudana guddoomiye waxaan keeni doonaa ilmihii garoonka joogay oo qaar qaangaara oo marag furi karo sidoo kale waxaan soo gudbin doonaa aaladii falka uu ku galay qorigii faalka ahaa khatarta badnaa oo loo yaqaan G3 sawiradii goobtii dambiga waa soo bandhigi doonaa exhibitka waxa dhawaan soo bandhigi doonaa baarihii kiiska soo baarina waa joogaan maxkamaddu si ay u wareysataa isagana waxaan codsanayaa in saas la iskugu daba xigsiiyo maxkamaddu waa maasan tahay garsoore kaa qora waa garsoorihii maxkamadda oo lagu horgeeyey waa ku wareysta waay midda oo qoray macnaha ammaanka inuu ugu furmo taas waa sax waaye midda oo qoray in xabad dhulka iga dhacday sax waaye marxuumkaas naxna ma dhexeeni waxaan ina ka qaatay ma rabin si bareerna marxuumkaas uma dirin ilaahay uu saweeyay xabadda marxuum ku dhacday ayaa u wadana ani qof ma umu weyn xabaddaas waa iga fakatay dhulka iga dhacday laakiin labada hore taas dharkana ku kala celinayay waan iga hormaadeen aad meesha waxa ka qabanaysa meeshii aan markaas socdaal ahay xaafadeeda ka soo baxay wiil mootaale soo socda xaafad ma aqoon marka banaankan xaaray markii inaan ka hor imaado wiilku soo socday garoonka marka dhaxdiisa dhex maray marka ciyaaraha socday markaasaan soo baxay marka garoonka weyn sax laakiinse meesha xaafadeeda laga baxay hal wado waay marka hal wado leedahay hawiye ma labisneeda markaas ayada ha waalbisnaa markaas tali unga ciyaarta ma wax ka daawanaysa ma ciyaarta ma daawanaysa socdaal ahay waa socdabo yaa kale askar oo kula socday ma yani keligii ahay qiraalka waxa ku sheegtay markuu falkaas dhacay in dad ay ku qabteen dhalinyaradii hadayna waxaa sheegtay inaad gurmad u samaynaysay isqabasiyo marka warkaas labadaas war okay hadaa isqabasiyo meesha xaafadda horta baabuur badanaa soo ma galaan meesha baabuurtana meel cabaar ay jirtaay oo socdaal in baabuurka ugu raadimaani baabuur soo galayso markaas laami kama dhow meesha haway ah markaan soo baxay oo cabaar macnaha aan socday ciyaalkii aan xabadeynay hadaati ayagoo tiro badan oo mindiyo dhagaxyo wataan ay soo daba kaceen marka ay soo daba kaceen hadda aan baxsanayo markaas laamiga joogaa baabuuraan qaadan karaa ilaahay kuma darnaade ana hadda baxsanayo ma lugoyn lahayn lug macnaha laami dhexdiisa lug kuma gooy lahayn meesha hadda markii leeyahay midda kale jirto shacabkaas dhalinyarada ma soo qabanin anoo markaas socdo oo dadkan gadaashii ay jiraan waxaa iga hormaadeen ilaamaha amniga ciidanka saldhig Garsbaali ay iga hormaadeen haddaan baxsanayo ciidankaas la dagaalami lahay waan xabaday lahay maadaama aan kiis aan soo geystay barar aan soo geystay ama dadkan la socdo qoryaa wataa waxaan didi lahay markaas waa xabaday lahay xabada kiis waa iskaga celin lahay anoo qoryaa wataa intaas qof dhaxda ima soo dhawo cabaar ay jiraan hadda ay qabanayaan oo inkii soo dhawaan ay qaban karaan Soomaha haddaan macna dadkaas inaan ay qabtaan macnaha oo isku talgaleen ima qaban karin waxay u qaban karin waxa waay lama amniga markaas saldhigaan u socday anoo markaas haday inay qabtaan u baahan yihiin oo ilaahay kuma darnaade waxa badee lahay waa kugu soo noqonaynaa ifriis markhaatiyaashaa dhegeysanayna maragga ay maxkamadda ku weydiin doonto inaad ka run sheegayso oodan been sheegin ma kugu walaayaan waa igu walaa ma kugu bilaayaan waa igu bilaay ku talaayaan waa igu talaa ninkaas meel jirone oo waxaa jira soonkii la qabto oo koob jirone soonle la qabto oo xaafada marka jironiga garabtay aniga waxaa iska tagnaa koobka iska fiirsanaa banooni ahaan barxadda hadda wiilka marxuumka dhimanaa xataa anaga kasoo horeynay asaa naga dambeeyey marka meeshuusuu maraya waxuu dhahay war meeshuu calaamiyay mar ninkii halaan soo maro ii sheegale anaa soo gala aqaan camal marka gadaal xag camal u baxay aniga dhinacaasaa fadhinay ninkan laba qofaa marka lama isku qabsatay dhinaca oo kan garoonka xaggiisa soo galeen isdagaaleen labadii wiil marka isjiidaan waa amaaday labadii waa amaaday waa canaanta halaa orday mid kale kibir camal oo muujiyey marka adig maxaa u taaganta camal oo dhahe marka labadoo isku dhaceen si fiican hadalkood ma u maqleen marka xag camalaa ka jira aniga ayagoo laakiin dodooda u jeeday marka waxuu dhahay ninkan waa qeyri hal xaba camal qori qam ku sii tii kale haddana qori saan inta u qabsaday tan kale haddana qam ku sii xabadaade saddex xaba miyaa qiyaastood ma sheegi kari mida waxaa la dhahay marka wiilaaga gadaal yaa wiilaa xabad ku dhacday
haddii la wada fiiriyba cunugii dhiig tirrig dhiig ka dhaha marka adi qaar wiilkii u rooreen asigii u amaaday waxuu dhahay war dhagaxa ku dhacay xabadda isbitaal u qaada ninkan waa baxay marka sii jeestay waa sii baxay cunugii qaara la orday asigiina waa sii baxay dadkii dhanaa ka daba baxaan hataa baabad qoray oo kusoo taagaya dadka waa kala ordayaan haddana cabaar waa baxay ninkan ciidanka amniga booliska oo degmada Garisbaale anaga soo gaaray sidii ku dabgaleen mid laacaan wali horta koodi isdad bursanay booliska ka dawmaaday sidii yaa loo soo qabtay ninka sanaha garoonka muu dhinac ka joogasay sanaha ninka wax dilay garoonka ku dhex wareegsaay meeshuu joogay ninkii inta soo galaa ii sheega u dhahay garoonka ninka soo dhex galaa ii sheega meeshuu taagan yahay garoonka ku dhex wareegsaay marka anagana meesha saana u fadhini asigana gadaasheena u fadhiyay marxuumka asoo turug dhiigga ka dhacay la aragnay wiil xabad ku dhacday la helay haddii saan u fiirin gadaasheena u dhiig baxay wiilasha isdagaalay dagaalkooda muxuu ka bilaabay wiilasha labada isdagaaleen ayagaa dadooda labada wiil isku qaqleelay oo isfiirayaan xataa ninkan amaaday wiilkan amaaday marxuumka oo dhimanaan geeskaas camal markuu fadhiyay anagana waa kasta xoogaa waa ka dheereen marxuumka dhimanay anaga xagga camal ka jirnay doodood soo fiican ma fahmin taas horta muku dambe ma ka gali kari waxaa iga sheegeen muku dambiyaa kari sanaha wax dilay nin wadada maray oo garoonka dhinaciisa maray ma aha mise nin ciidan dadka daawanayo ciyaarta nin ku dhex jiro oo kala hagaayo oo ciyaartaas ku mashquulsan mu ahaa dadka oo kale celiya ciyaartaas ku mashquulsanaa meesha la keensaday muxuu ku ma labisana mise dhar carabi wati waa labisnaa markuu ninkan xabadda ku dhuftay meeshii muu joogay mise uu baxsaday uu carray waa carray kadib maxaa fashay markii idinka ciidankii dawgale sidii isku doobursadeen ana ciidan mi qor watan bursi kari marka kor dheer anaga ka fiireen la wada socon ciidanka ma qabtay mise dhalinyarada banooniga dheelaysa qabatay ma ciidanka qabtaan dhalinyarada ma qabin nin hub wata qawanaan ninkan warkiisu waa cad yahay su'aalo ka kooban oo waxtar la weydiiyey xabadda markii oo uu ridayo sababta uu u riday waxaa sheegtay laba nugaas qabsadaa dhahday labada isdagaalena macnaa hala madax adkaaday mida orday mida baxay kan kala marka labada xoogaa isku dhaceen marka qoray saan camal u qabsaday qam oo ku sii qor camal u riday saana u qabto waa seexay qoray tii kale marka hadana waa ku celi tan saddexaad miya marka cunuga lugta saan dhahay dhulka ma qabato marka taas cunuga ku dhacday amalaha cunugii oo garoonka ku jiray caro lugta saan dhahay lugta saan dhahay marka lugta kadib hoos u dhigay hoos marka uu dhigay lugta dhulku qabtaa saas kadib markuu hoos u dhigay xabadaas dhacday kadib waxaa maqasheen ninkii gadaashaada fadhiya xabad ku dhacday cunuga xabad ku dhacday maqan bartaana ka qabato ama santaas laba qof oo ka tirsanaa carruurta ciyaaraysa isku dhacay sidaasay xabadaha ayuu ku riday soomahaas uu kala fujiyay labadooda marxuumka dhintay dadkii isdagaalaya kama mid ahayn Soomaali ma ka mid ah meel gaar ah haaya ma ka raba waxba isdaalin marxuumka dhintay iyo eedeysanaha wax buuqa ma dhaxmarin Soomaali maya eedeysanaha intuu soo kacay marxuumka intuu hor istaagay xabaddu kuma ridin Soomaali maya maxkamadu ma haysanta maxamed muriid caamir maraga maxkamadda ku weydiin doonto inaad ka run sheegayso oo dambeyn sheegin ma kugu walaayaan way wallahi وبالله طلع maxkamaddu sharax wixii aad arkaysay ee aad goobjoog u ahayd horta ninkan oo ciidanka ah meesha waxaa joogay oo goobta oo banooni u dheelay wada daawasho kulna daawanayna oo banooni ah intaas dhalinyaro fadhisay la qofooda isdagaashay marka ninkan oo imaaday loo xaba kor u gamarto midadku waxa xalab waa gimi walna wuu wati hal marka kor u gumi mid labaad ku celiyo martii saddexaad waa marxuum ku dhiceyso tii saddexaad waa marxuum ku dhiceyso oo hoos u dhigay marxuumkii ku dhacay baash kadib muxuu sameeyay markaas xabad ku dhiftay kadib wuxuu sameeyay ninkan inoo baxsada isku day inoo baxsado isku day marka ninkan amaamad iyo xasaab wuxuu dhahay ninkan amaamadan wiji uu dawlanay xabadii kuma dhicina dhagaxa ku dhacay meesha waa joogaasi waa wana u maaday
xabadii kuma dhicin ninkan waxa ku dhacday dhagaxa ku dhacay ninkan hal qaadan wada ma ninkan oo baxsa isku day marka waa carar ninkan marka waa cararay waa bax ninkan xariif oo askari ay imaaday oo mood iska saaran oo xabad oo maqal dhabaaq oo maqal imaaday waas doo bursadaan ninkan marxuunkii aniga meeshan uu yeelaa saanana waa naxsanaabo dhiig markaa aniga waa naxni marxuunkii marka waa la qaaday ninkan marka saas oo baxay aan fogta la soo qabtay su-aal oo furan tahay muxuu idin dhaha marka ninka marxuumka xabadda ay ku dhacdaa maqashaan ha muxuu idin dhaha eedeysana ninkan xabadii kuma dhicin yani dhagaxa ku dhicin ninkii oo xabadda ay ku dhacdo dhiiggiisa socdo ku dhaca dhagaxa ku dhaca dhagaxa ku dhicin ninkan marka xabadii kuma dhicin aan ninkii ma u qaaday mise waa carara wax gurmud muu sameeyay ay wax gurmud ma sameeyay muu sameeyay waxaan leeyahay ninkan aliwado ala geeyo yani ala qaado markii xabadda uu riday meesha ciidan kale ma ka dhawaabis kaligiisa joogo kilis la joogi sidee marka ciidanka ay ku qabteen dadka ayaa bursanaya ninkan asaga ninkan mooto raacay mooto lagu bursaday mooto raac markuu dhiigga ninka xabadda uu ku dhufto dhiiggiisa arka mooto raac mooto raaca baxay waa orday yaa wax raac deestayaa marka ciidana mise ciyaalka garoonka dhiileen hal ciidan ay imaaday ay wixii garoon fadhiyeen aas doo bursadeen aad u mahadsantahay laba qof baa isdagaashay oo ka mid ah dadkii garoonka joogay xabadaha saasoo u rida isoo kala fujiyay Soomaa laba qof isdagaashay xabada ku riday marxuumka dhintay meeshuu uu fadhiyay eedeysanaha markuu xabad riday meeshuu taagnaa masaafa u dhaxaysay Soomaa waa mahadsantahay maxkamaddu mahadsan xuseen cabdiraxmaan maalin marag ay maxkamadda ku weydiin doonto inaad karun sheegayso oo been sheegin ma kugu walaayaan ugu walaaya kugu bilaayaan ugu bilaaya kugu talayaan ugu talaaya adoo xasuusan arta hadii lagu dhaariyay maxkamaddu sharax waxa arkays anaga garoonka joognay marka garoonka ay joognay askarigan oo imaaday markoo imaaday balooni leelay waa jirooni koob meel lugay soona eed askari markoo imaaday laba ciyaar meesha ku dagaaleen qori iyo wuxuu watay qori ul markuu watay usho askari qori oo qabsaday laba ciyaar markay isdaayeen laba kor u ridi xabad kale hoos u wareegay marxuumka ku dhacday askarigu kaale dad dishiyaal oo imaaday wuxuu dhahay xabad ma dhagax waay ee qaad isbitaal geeya cimaamadu ku tuuray marka askariga bursani xabadoo nagu soo ridi waa ka soo laabtay qofkii xabad ku dhacay yaa qaadni isbitaalka geeyni marka isbitaal geeyni ninkan oo dhintay aan Allah maragaan iyo marxaatiyaasha hore waa isleeyihiin adoo xasuusan arta hadii lagu dhaariyay maxkamaddu sharax waxa arkays waxaa arkayni anagoo badan oo meel fadhina askari meeshuu joogay laba ilmo oo meel soo istaagsaday labadaas ilmo xabado ku waasaay laba xabo kor u tuuray mid kale hoos oo soo dhigay qofka oo agteeda fadhiyo ku dhacay sidaba askari in horta qof uu xabad ku kala celiyo horta kow aslan baqalad waayba xabadu wax ma kala celiso xabadu cadow waa loogu talagalay hadduu marka quman yahay xabadu marka qoriga 90 degree in la geeyaa waa kor la geeyaa oo xabada kor loo rido xabad saan ku socoto aslan ba qofka dhow ee ku dhacay hadda maxkamadda howlkaana joogna hadda saan xabad loo rido qof ay qabsanay meeshan joogo marka dood oo xawaaye isheeg aanan soconaynin waa midda kale inuu wax dilo wuu rabitaana jiro sababtoo ah markii koobaad oo xabadda riday oo ay kala joogsadeen markii labaad uu haddana isku noqdeen uu kala celiyo xabad kale uu ku ridi mid ka mid ah ciid ku farajiyey oo yidhi maxaa adiga noo kala celinaya annaga hadalkaas waa wuxuu ka xanaaqay marka kugu xabadda u waday ilaahay waa ka badbaadiyey laakiin rabitaan inuu ninkan xabad ku dhufto ayuu qorigan horta ammaankiisa inta u furto ureysada u taabtay laakiin ilaahay nin kale ku sabay sidaas darteed marka macquul maba noqonaysaba xabada ciid ku dhacday qorigaaneti qoryaha aakahoo kale maaha qorigaaneti aaka maaha waa J3 waay J3gu waa ka horumarsan yahay qoriga aakaha isaga naftirkiisa si special loo soo tababaray si special qorigan loogu soo tababaray wuu og yahay marka marqaatiyaasha dhan waxay isku waafaqeen angalka uu ka ridi angalkan waa saan kormiya saan korma saan qof alla qofka eridan joogay ku dhacay saan xabada diloo rido korma saan mam noqotaba marka waxaan rabaa in saas maxkamadda u fahanto maxkamadda waa maasanta baaristaada maxaa kaaga soo baxay mudan gudoomiye gabagabadeena baaristeena markii aan si dhaba u baarnay kiiskan waxna ka qornay dhinacyada aragnay qiraalka eedeysanaha markaan aragnay caddeynta marqaatiyaasha markaan aragnay shahaadada dhimashada ee isbitaal Madiina waxay noo caddaatay in eedeysana alif lixooga mahad nuur shube uu geystay fal dil bareera uuna u geystay Allah u naxariistay marxuum Faysal Cabdi Cismaan Jinuulka waxaana ku soo eedeyn qodobka
434 ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda maasanta marka daris eedeysanaha goobta maxaan ka qabanayay muxuu kuu sheegay asiga wuxuu ii sheegay in banooniga oo dadka daawanaya ka mid ahaa laakiin baaritaankii waxaa ku ogaaday in mid ka mid ah dadka qabanaya koobta ay dhaheen ciyaalkan maanta iga kala celi oo wixii foodo sameynayo wax kale adaa qori wata waa soo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa wuxuu noqday nin la kiraysto oo waa la kiraystay wuxuu kuu sheegay gaariga ay la socdeen inuu magaalada dhexdeeda kaga halaabay saa darteed askartii ay la socdeen qof kasta gurigiisa uu qaatay qoriga uu watay nay ma sheegin taas baaristaada oo ku ogaatay Soomahan oo kuu sheegay in uu sugayay askari kale oo saaxiibkiisa si qoriga xerada u geeyay nay ma sheegin marka ay wax dhacayaan oo marxuumka Allah u naxariisto inuu asaga gacantiisa ku baxay laskuma doodka mata laskuma haysto in ka horo laba dhalinyaro ah ay meesha isku dagaaleen dagaalkoodaas si uu kala fujiyo oo laba baalooto ku riday uu kuu sheegay Soomaha kor u riday ii sheegay baarista kiiska ku dhistay waxa qayb ka mid ah dadkii awareysatay oo goobjoog ah Soomaha si fiican garoonka marka laga tago roogiisa hoose waa ciid Soomaha bacaad way Soomaha okay maxkamadu ma haysanta mun gudoomiye waxa ku ogaanay in mid ka mid ah dhalinyarta koobka qabanay inay soo kireysteen ayna dhaheen ciyaalkan meesha buuqa waday ku foodo sameynaya adaa qori wateen naga kala celi baaris wala shaqeynaya marka wala shaqeynaya eedeysanaha meeqa xaba ayuu riday wuxuu riday ku dhawaad 3 baalood tii saddexaad ma ku dhacday marxuumka wax gurmad ah oo u fidiyay ma jirtaa marxuumka ma ay goobta oo ka cararada soo sii cararaya dhalinyarta joogay goobta daba carareen qaarna waxay ribood gareeyeen saldhigga degmada Garsbaalley ciidana ka horjeedin sidaas lagu qabtay eedeysanaha ma ciyaalkii banooniga dheelaya qabtay mise ciidanka laamaha amniga oo Garsbaalley qabtay ciyaalka way bursadeen way raacdeysteen waa dilayga waa kan iyagu dhaayaan ciidamada qabteen oo saldhigga Garsbaalley goobta lagu dheelay oo jirooniga uu ka socday ma garoon bacaad ah muu ahaa mise garoon salax ah ahaa waa garoon bacaad ah oo wax dhagax lahayn waa maasantahay fariis si waafaqsan qodobada 110 iyo 163 bandhiga cadeymaha marka koowaad waxaan ka bilaabaa macluumaadka eedeysanuhu waa alifle xooga ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed ka tirsan oo tababaran lambarka uu wato waa 48278 magaciisa saddexna Mahad Nuur Shubaa la yiraahdo magaca hooyada waa Malayka Nuuno Maxamed 23 sano jira ahaan wuxuu degan yahay oo ku dhashay waa Xamar wuxuuna ka tirsan yahay ururka 7aad guutada 18aad ee Gorgor wuxuuna maanta noogu eedeysan yahay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waa kana qiraalkiisa mudane ku doomiyay uu ku qiranayo in dhacdadaas muwaadinkaas uu gacantiisa ku baxay asbaab kasta oo markaasi ku andacoonayo ama ku cudur daaranayo waa gaar laakiin qiraalkan wuxuu ku qirsan yahay naftaas in gacantiisa ku baxday mudane ku doomiyay hadaa u gudbo goobta uu falku ka dhacay waa xaafadda iga dabageey xaafadan magaceeda waxa la yiraahdaa iga dabageey waxay ku taalaa Garsbaalley barxadaas aan u jeedno mudane gudoomiye saad u jeedaan maxkamadda aan soo bandhigano waa barxadii ilmaha ay ku dheelayeen haddaan u gudbo sawir goobta falku qaabka u dhacay sawirka bidix waxaa ka muuqda geed uu hoos fadhiyo nin dhalinyaro ah oo funaanad cadaan xiran oo aan ka soo qaadnay bandhiga inaan ugu talagalno inaan labada nin oo is haysato isla sawirka gacanka bidix ka muuqda oo macawiisa xiran waxay tusaale ahaan noogu taagan yihiin labadii cunug oo ciyaarta iyadoo socota isdagaalay maxgalka halkay isku dagaaleen hoostooda fiiri laba dhagax ayaa yaalo dhagaxaantaas waa goolkii bidix ay isku dagaaleen sawirka midig markaan u imaano waxaa ku jira askari aan ka masaalinay eedeysanaha askariga marka sida ay ugu aadan yahay ilmaha isdagaalayo iyo marxuumka dhimanayo gadaal damba fadhiyo falaartu wataas muujinaysa marxuum goobta fadhiyo ilmihiis dagaalayna waa kana hor taagay qaabkan ayuu xabadda u riday mudane gudoomiye iyo garsoorayaal waxa waaye sawirkii laga qaaday marxuumka Allah u naxariisto 18 sano jiray soo soo kacay arday uu ahaa mustaqbal uu lahaa Allah u naxariisto shahaadada isbitaalka waxa ku qoran in uu u geeriyooday ila keenay isbitaalka soo meeda kana muuqday dhaawac xabadeed oo ka galay wajiga markii baaritaanka raajada lagu sameeyay waxa la arkay xabad ku jirta maskaxda xabadii waxa dhex fariisatay maskaxda dhex fariisatay taasoo keentay inuu dhinto sababta dhimashada keentay waa xabadda iyo dhiig baxa ee sameysay maskaxda
waxaan rabaa maxkamadda sharafta leh inaan la wadaago mudane guddoomiye iyo garsoorayaal exhibitkii oo ah qorigii faalka ahaa oo uu ku laayay ilmaha ku dilay mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh waa mahadsan tahay fursaddan qaaligaa noo siisay dhegeysiga dacwadda eedeysane alifle xoogga mahad nuur shube oo xafiiska xeraaliyaha guud eedda ka soo baxday ay saaran tahay qodobka 434 oo ah dil bareera mudane guddoomiye garsoorayaal dilka kaska ah waa inuu qofku la yimaado rabitaan waa inuu rabaa inuu naf jaro goobtan naf ma ku baxday ha labo waa inuu la yimaadaa ficil ma dhacay oo naf lagu goyn karo ha qoriyo hoos ugu dhig qof waa inay natiijo dhacdaa natiijadu rabe maxay ahayd in qof bini aadana uu dhinto yaa ku dhintay meeshii ari kuma dhiman qofkii bini aadanka dhintay 434 tiirarkiisu wuu buuxiyey waxaa intaas dheer mudane guddoomiye xabaddii markay ku dhacday marxuumka waxaa la yidhi askariyow ninaad dishay wiilaad dishay qofkaa yaalla inta uu soo dhaqaaqay asoo sheeneynaya wuu kor imaaday eedaysana cimaamada inta u saarneed cimaamaduu watay asaga u saarneed uu dhididka iskaga tiraayo busta iskaga qarinaya inta u saaran uu soo baxay meydkii soo kor istaagay saan uu fiiriyey kana ha arkada xabaddeedu kuma dhicin dhagaxa ku dhicin intuu qabtay maradii ereygaas qaabka daran leh markuu dhahay ficil ka sii xun ereyga uu dhahay uu sameeyey haddana maradii uu watay oo cimaamadda ahayd si ixtiraam la xataa loo saaro ma dhihin cunug uma dhiibin xataa intuu qabto ku tuuray ma ninkaasaa markaa waxaa dhihi karnaa waxaa ka dhacay falkama ma dhihi karna mudane guddoomiye haddaan u gudbo codsigii gabagabadeeda mudane guddoomiye garsoorayaal bataatan mahad nuur shube ma u qalma ciidanka uu ka tirsan yahay gorgor ma lagu yaqaan gorgor inay maatada iyo ilmaha iyo ay ku soo noqdaan waxaaba intaas kaaga sii daranba fal xumayba u tahayba xubin ka tirsan gorgor waxaa kiraystay ilmo banooni dheelay waa fadeexadii ugu weyneed waayo ma u qalma ciidankaas inuu ka tirsanaado waayo waa ciidan sharaf badan waa geesiyaal cadowga la dirira waayo marka koowaad maxkamadda waxaan ka codsanayaa in mushaarka uu ka khasaaranayo ciidanka dowladda Soomaaliyeed qaranka uu ka khasaaranayo in marka koowaad horta laga ruqseeyo xubinnimada ciidanka uu ka mid yahay waayo maba qalmabo hali asaga dhan ba halaas uu dhan marka labaad waxaan maxkamadda sharafta la ka codsanayaa aad way caddahay si cad oo shakilaana soo cadana kas in uu riday xabadaas uu rabay inuu qaarijiyo ilmaha garoonka joogaan ilmihiina waa ku dhintay meeshii cunug 18 jira ku dhintay markuu dhintana wuxuu yiri dhagaxa dilay xabaddeedii ma dilin asu cimaamada qabto wajiga uga dhuftay ma mudna maanta marka inuu god ugu jiro marxuumkaas la dhihi jiray mudane guddoomiye garsoorayaal Faysal Ismaan ma mudna maanta inuu asagoo god ku jira eedeysanihii sidaas intuu u dilay kor istaagay dhagax baa ku dhacay cimaamadiisa wasaqdeedu dhididka ku tirnaayay oo bustu iskaga tirnaayay wajiga ugu dhuftay meedkiisa oo xurmeen waayay in loo naxariisto mudane guddoomiye ma u qalmo Faysalna cadaalad uma noqoto maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaa marka sida uu xabadda madaxa ugu dhuftay u dilay mudane guddoomiye inuu u dhadhamiyo oo maxkamaddu ku xukunto dil toogasho ah oo qisaastii Faysal Ismaan maxkamadda sharafta waa mahadsantahay wuxuu kaluu sheegay xeelaalyaha in uu wax dilo ayuu u imaado annaga waxaan qaadanaynaa xadiiskii ahaa naxnu naxkumu dawaahir wallahu taala saalix wixii qarsoon ilaahay subxaanahu watacaala baa xukumaya laakiin annaga waxaan qaadanaynaa waxa noo muuqdo oo markhaatiyaasha ay sheegayaan iyo sida caqliyaddeena ayna siinayso haddii uu xafiiska yidhaahdo ninkaasi inuu dilo u soo galo garoonka xabadaha kor loo riday ee dadkaasi dagaal ay ku kala bixinayay muxuu madaxa uga toogan waaya kuwa iyaga taana waa waxaan meesha jirin waa xamaasad in ay iska fiiriyaan ay ahayd labada xeelaalye baaraha kiiska wuxuu adeegsaday erey ahaa asagana waa la soo kiriistay asagana waa ka jawaabay asaga laftiisa baaristiisa inuu sheego dadkii soo kiriistay iyo sababaha meesha u keenaan asagaa laga rabay inuu ka jawaabo eedda marka mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh qodobka 434 dhacdo halkaas ka dhacday oo garoon ka dhacday oo nin ciyaarta daawanayay oo askari ahaa oo dad isdagaalay kala celinayay oo markhaatiyaasha ay caddeeyeen in uu wax kala hagaayay 434 inay soo qaataan aad baa looga fiicnaa mana ahayn waa soo koobayaa waxaa u soo gudbayaa mudane guddoomiye garsoorayaal cadeymaha la soo gudbiyey oo kala duwanaa oo u horeeyo qiraalka eedeysanaha wuxuu yiri falkaasi waa geystay laakiin kasiga ma ahayn
maxaa xoojinayo dil u ah waxaa dil oo xoojinayo markhaatiyaasha la keenay oo asaga u dareerin inuu xafiiska xeeraalinta uu keenay inay xoojiyaan cadeymihiisa markhaatiyaasha dhammaantood waxay ka markhaati kaceen ninkaani garoonka inuu hore u joogay waa qodobka labaad in ay laba qof isdagaaleen labada qof oo isdagaalaya marxuumka ma ku jiraa layidhi kuma jirin bay dhaheen marxuumka uu ka madax bannaanaa haddii la dhihi lahaa marxuumka dhintay wuxuu ku jira dadkii isdagaalayay halkaasi waxaa xigmad ku jiri lahayd kasbu u dila kuma jirin marxuumka gadaal buu fadhiyaa layidhi wuxuu xafiiska aad ugu soo celceliyey markuu sharaxayay cadeymaha sharaxayay mid ka mid ah isku taagay buu yidhi qofka isku taagay miyaa maanta dhibano ah mise qof kale qof kala dhibano ah kan isku taagay asaga eed ma lahanba maanta meeshiisa caddayn looma joogo eediis maanta looma joogo marxuumka marka oo dad ka mid ah ciyaarta daawanayay oo goobtiisa joogo oo eedaysanaha dagaal ka dhexaynin buuq dhex marin dadkii dagaalaya aan ku jirin sabab uu xafiiska u dhaho xabadiisa uu kas ugu dhufta maangal ma ah markhaatiyaasha kala duwanaa uu soo gudbiyey kurtooda waxay isku soo aruuraysaa xogtooda ninkaani xabaduu riday oo saddexdaa laba ka mid a kor bay u dhaceen xabadii saddexaad oo dhulka ku dhacday weliba xafiiska uu qariyey uu inkiray isagee baariisa baaraha ka dambe wuu sheegay aa ku dhacday ma waxaan qaadan karnaa marka dooda ah marxuumka inta la hor istaagaa xabad lagu dhufta mise waxaan qaadan karnaa dooda xabad dhul ku dhacay saas ugu sii dhacdo midda waxaan qaadanaynaa markhaatiyaasha baan qaadanaynaa oo lagu dhisaya cadeymaha lagu dhisaya qoriga waxaa lagu dilay maxkamaddu kolley hubka iyada iga taqaano waa qori culus weeye caqligal ma ahan laba qof oo masaafahaas isku jirtay qorigaasi ninkaas hadduu u qasday inuu kas ugu dhufto madaxiisaa burburla uu ka dhex bixi lahaa sidaa ku naqaano qorigaas weeye laakiin xabaddii way dhex fariistaan marxuumka taa marka waxay caddaynaysaa loogtaan masaafo u jiray xabad ku dhacday kadib ay ugu tagto goobtiisa marxuumka ugu tagta taa marka waxay xoojinaysaa dooda annaga magangalka u soconaa 445 xeerka ciqaabta in lagu dhiso yay ahayd eedaysana loo haysto qodobka lagu soo eedeynayo haddii marka ay iswaafaqi waayaan falka dhacay iyo xeerka qodobka la soo qaadanaya hadday iswaafaqi waayaan mana gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh xafiiska xeeraarinta laftiisa wuxuu gelayaa dowr ah in uu jahwareeriyo cadaalad jahwareeriyo uu la imaado si asaga ay la tahay macnaha uu la imaado maxkamadda horteeda uu la imaado laakiin maxkamadda hor joognaa baaraha kiiska goobta uu tegay wuxuu caddeeyey inay tahay garoon bacaad inay tuu caddeeyey sidoo kale xogtiisa waxaa ku dhisuu yidhi markhaatiyaashii maxkamadda la hor keenay baa ku dhisay waxaan kaloo ku dhisay waraysiga aan la yeeshay eedaysanoo maxkamadda lafteeda maanta qiraalkiisa laga hor akhriyey yaan ku dhisa intoo marka waxay ku shubanaysaa 445 bay ku shubanaysaa way ka madax bannaanta wayna garab maraysaa 434 xeerka ciqaabta way garab maraysaa cadeymaha la soo gudbiyey waxaa kaloo ka mid ahaa warqaddii shahaadada dhimashada marxuumka allah u naxariisto mudana gudoomiye aniga kama difaacay eedaysanahana asaga laftiisa uu qorsan yahay dilkaas inuu geystay kama difaacay asagana ma diidano allah u naxariisto qoriga falka lagu geystay sidoo kale ma diidanin laakiin keliya waxaan anaga ku soo koobaynaa maxkamaddu inay isbarbardhig ku samayso cadeymaha tirada badan la soo gudbiyey 434 ma lagu dhisi karaa oo muwaafaqsan yahay shuruudihiisi ma leedahay la akhriyo 24 la akhriyo xeerka ciqaabta la akhriyo waxaa lagu dhisi karaa 445 xeerka ciqaabta marka la fiiriyo waajibaadka uu gutay xafiiska xeeraarinta 110 163 xeerka habka ciqaabta saa darteed muna gudoomiye garsoor hadda intaas kaga soo gudba dhacdada waxaa jirto eedaysanaha falkaa markuu geysanayay isla bisha ayada dhexdeeda maalmo ka hor inuu ka imaaday furunta ka imaaday fasax soo qaatay asagii askarta kale la socotay xafiiska daaw taayada dood buu geliyay asaga laga rabay inuu keeno warqadu ka soo qoray taliyiis uu leeyahay ninkaan shaqadii ka soo tagay haday waxba ka jirin ninkaan shaqadiisa fasax baa laga soo siiyay furuntu ka imaaday sida uu noo sheegay gaariga dhex kaga halaabay saas darteed askariga waxa waajib ka saaran qoriga asagoo wato inuu asaga uu ilaaliyo guriga saas uu aaday galabka ayadana wuxuu yiri waxaan geeriba xerada geeriba qorigaan geeribay midda marka xafiiska xiraanta uu leeyahay macquul ma ahan askari la iska soo fasaxay asaga la rabay inuu imaado warqada ku cadeynayo inuu ku soo eedayo qodobada ah shaqo tagid inuu ku soo eeday ahayd waxa kale ku daray inta ayada waxa jirto in ay is arkeen ehelada marxuumka iyo eedaysanaha طبعا anaga heshiis ma wadno dhamaystiran ma wadno laakiin ehelada waxay noo laadeen in nabadoonadii marxuumka iyo eedaysanaha ay is arkeen ay marar kala duwan fariisteen qarashaad badan xaggooda ay kula baxay duugti iyo ku saabsan marxuumka hawlahaas laftooda ay bixiyeen laakiin
heshiiskooda dib uu ka yara qalloocday taa lafteeda maxkamadda inay tixgeliso oo dib ay u baarto ayadana maxkamadda u soo jeedinayaa saa darteed muuna guddoomiye garsoore maxkamadda sharafta leh haddaa soo koobo oo gabagabeeda 119 xeerka ciqaabta u soo gudbo maadaama aan la diidanayn in eedeysanaha falkaasi uu geystay maadaama anaga aan ka difaacaynin eedeysanaha dilkaasi ma geysanin maadaama la rabay xafiiska xeeraarinta cadeymaha uu soo gudbiyey xaqiiqada in uu ku dhiso iswaafajiyo falka iyo xeerka inuu iswaafajiyo ahayd laakiin uusan iswaafajinin keliya xaashadiisa 434 uu ku soo ogay laakiin cadeymihiisa maxkamaddu hor keenay ay u arurayaan dilkama ay u arurayaan maadaama uu yahay askari gudanaya waajibaadkiisa markaasi la sheegayna dadkaasi kala hagaayay maxkamadda waxaa ka codsanayaa in marxuumkan uu xorriyad helo uu cadaalad helo eedeysanaha laftiisa isagana uu cadaalad helo maxkamadduna ay ayido difaaceenna aan ku difaacaynay qodobka 445 xeerka ciqaabta oo ah dilkama ah ay diido dooda xafiiska xeeraarinta ee ahayd 434 dilkaas ah maxkamadduna waa mahadsantahay doodii dhiciisa maqlis maano doodii dhiciisa aad iyo aad u maqlahay maxkamadda sharafta leh aad u mahadsan tahay marxuumkaas inta Allah u naxariisto geeridiisa aad iyo aad ugu xumahay kumana faraxsani midda kale lagu soo jeedo waxay tahay ninkaas amaanta inama wax aan dil aan bareer aan u rabo labad isdigaal aan dagaal yaqaanahay qorigaas waa leeso tababaray ma hada u soo baxayna wax dilo labadaas qof intan ay jiro aan xabad lama gafaayay man gudoomiye ma fahantaade taas iyadoo jirta ugu eedeeyay eedaanta ugu eedo waxay tahay ninkaan in wax dilo u soo baxay marka haday ka dhigmato inaan wax dilo u soo baxay labada nin isdigaalay ama xataa ninka caray ugu soo fadhiya xataa ani xabad wajiga uu fakar hadaa dil u baahanahay wuxuu ka dhawaajiyay in eedeysanaha la soo kireystay maamulka garoonkana uu shaqada dhinac ka waday kidigid goob shaqo goobtiisana shaqada aysan garoonka ahayn mudan gudoomiye meesha horta aan joogay goobtii shaqada ma ahayn laakiin xaafadeeda ahayd waxaan u socday taliska ku yaalo Jarnaal Daawud wuxuu ku yaalaa taliska dhan waa meesha hubka lagu xareeyo waay maalinkaas marka baawar oo naga halaabay xaafadaas macnaha baawar meeshan ku aadmay ciyaalka dhan isla iimaan 30 qof ama isla iimaan kulligood xaafadooda wada aadeen marka maan labaad marka tali unaga soo wacay wiil mootala wacay waa sugaayay waa iimaad ninkaas ii socdaan sugaayay marka sugaayay wuxuu yiri meesha waa family ah ay horeyga maaw marka dhacdadana la kulmay taas markay noqoto taliskii maadaama xaq uu yahay oo aan u soo baxay hadii xataa noqoto cadeen ligu haya oo bashqad in lacag lii tuuray oo ii soo kireystay qofkii kireystay ma keeno oo ninka aan kireystay dhig karo oo cadeen ligu haya xafiiska xiraarinta wuxuu ka dhawaajiyay in xabadda koowaad dhalinyarada isdagaasho aad ku riday mid labaadna aad ku riday midda saddexaadna yar kale oo carar kugu soo firjiyay oo lugta kugu soo firjiyay inaad ka xanaaqday sidaas awgeedna ninka oo u dishay eedaas oo xafiiska xiraarinta waxaa u jaabaysaa midda labada xabo halkaas horta waa riday sax laakiin midaan kale si kas aan umuridin qoriga xarigiis gaanjo le gaanjada iga baxday qori maadaama ay u dhacay qoriga rishida furta ila galay markaas xabada horteeda ku dhacday dadan horteeda tagna caradeen wax yar ka hor waxaa sheegtay aniga haddii aan kas ugu diri lahaa madaxa xabada ugu dhufa lahaa marxuumkana madaxa xabada uga taalaa macnaha soo aasi iga dhigo oo dhahay macnaha ninkaan noo dil hadduu u baahan yahay macnaha bareer wax ku dili macnaha hadday noqoto xataa inaan waxaan aadil meesha marxuumka meesha kama dhibeyni ninkaan wuu taagaya ninkaan cunuga kale wuu fadhiyo ziyaad waa iga fogaay qorigaan 400 kiilo oo tilaa wax ka dilaa xabad culusna waay ma jirtaa inaad inkirtay oo aad dhahday marxuumka xabadii ku dhacday xabadeyda ma ahan dhagaxa ku dhacay ma jirtaa arrintaas inaad dhahday taas ma jirto ma gadami ma jirtaa cimaamad aad qoort ku wadatay ama kugu jirtay inaad ku tuurto marxuumka oo aad dhahday markaas ma jirto cimaamad ma wadanin boosh iyo qori iyo beenaada wati bis waxaa la sheegay inaad goobta ka baxsatay kadibna laamaha amniga iyo ciyaalka beenuuniga dheelaa inay ku eryadeen oo kusoo qabteen saasna gacantaad ku soo gashay ujeedkaagina uu ahaa inaad goobta ka baxsatid ma jirta arrintaas muddo gudoomiye midaas ma jirto hadda aan baxsanahay meesha horta meel dhacdo dad oo wada joogan waa dad shacab wada ereysan dadan istoriyeenay maadaama aan qalab aan wado qori aan wado hub dawlad aan wado dawladdaas haddii xataa ilmahan dhalinyarada isoo dhex gal maanta bir ka maalin qoriyaan ama ay ugu dhibaatayaan ama qoriyaan wax ku dhibaatayaan ana maanta mas'uuliyadiisa meeqa sana ciidanka taadi ani 6 sano askari ah dugta culus ka tirsan tahay la dhahay labada kulaati koodi ciidan ma qorto gorgor maxkamadda waxa ka codsanay maxkamadda waxa ka codsaa inay si cadaalad igu dhaqdo hay faris garmaqalku eedeysana ka ahaa alif la xooga 48278 mahad nuur shube halkaas ayuu ku eegayay maxkamadda way soo gabagabaysay
maalmaha soo socda ayay go-aanka soo saari doontaa insha allah galkan waa xiran yahay